qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhami way hagaagaan waxay culamada taariikh wariyaan Umar bin al-Khattab waqtigii uu amiirul mu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhib oo jira kormeer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaanta waxay tidhi nacaanihi biya ma ku dartay anihi suuqa aroorta la geynayay ayay islaantu rabtaa in la badxo biya lagu daro markaasay inantii waxay tidhi hooyo Cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi in amiirulmu'miniina laa yaraaki الآن amiirulmu'miniinku dee hadda ku arki maayee tiri shaqada inoo qabo amiirulmu'miniinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tiri inantii baa waxay tidhi إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا هذان مدحوينوه إن أركينين أمير المؤمنين كالرب جيبا إن أركيا بيتري إلهي بين أركيا سيدا أوجد مصور تقال بيتري إن مركو أمير المؤمنين كوما إلهي مركدتك تشوغان إن نطيعه مركان كليو بحنا إن عاصية صورة قلبها marka dadku ay arkayaan inaan ilaahay ka cabsado aanan caana badxin marka aan gaar u baxana inaan wax badxa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan Cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay wareerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisii buu isugu yeedhay dabeetana wuxuu yidhi waryaadhe أنا nin weynoo da'an oo hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inaan ilaahay ka cabsanaysee warardo taa guursada inamadiisii mid ka mida baa guursaday waxay yidhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay yidhahdaan Cumar bin Cabdilcaziis amiirulmu'miniinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la yidhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayay عمر بن الخطاب حين قدن لنا هاي هدي وقفكو إلهي عبسيدي سكوا وينات وعبادتي إحسان لي ماضو عبادتي سوحي كان سنسا إن ما كرونا كريمت يدا كان سنس هذا سلادي سنة بنقطة وربي جيها بينك كحدنا بعد مركي واختيادي هراء نبا ayaa qola saxaabi yiraahdaa ninka hebel habeenkiina salaadu tukada maalintiina waxbuu yara qaad nabigu maqlaya kaleey salaatu wasalaam wasuu nabigu wuxuu ku yiri sida ay sheegaysaan haday jirto inna salaatuhu satanhaa bu nabigu yiri salaadiisa ka reebi doonta yani war kale uma baahna haduu nin habeenkii intuu istaagay yahay oo rabbigii ku xidhma dabeecada noocaasi ah inuu rabbigii ku xidhan yahay iyada samayn doonta buu nabigu leeyahay inay noloshiisa kan taroosho oo gacantiisa kan taroosho uu qof dhowr soo noqdo dabaayo hal xibba waxaan leenahay meel kasta aad joogtaan ilaahay ku xidhma ku xidhnaanta inuu ilaahay ku xidhanayna xidhnaan dhadhan samaynaysa aan ku xidhnaan inay cibaadadaynu samaynayna noqoto cibaado macna samaynaysa cibaado aad dareemayso rabbu samaawaati wal ard بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن تكحرت الله هذلش ما أنت هذا وحي يركو قبصدان تدكو حلقة يا بينو عرر ومركبة كفكروا وارتلوا يا يقول دوار وتجاه صاحب قراب وطل يا وحب الباب كله بشره ضد برطه الباب غنية أو حوالي باكتي سيالين كله بشره وأنت تهبين كيست أكتين ربك بريدي دو تكتت الباب كإلهي بك بشر ككدو لكن ما دام مادياتكم ينقول تربطين أخيرا وحين نقول نداد أسبابتون اعتمادون صببت أيوم مغطى لكن رب السماوات والأرض مسبب الأسباب كبانو ينوم مغطى صببت بإله فضيلية
idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato dadka marka la yidhahdo cibaadaysto caynkan waxay ka fakeraan una is idhaahdaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo war aakhira uma jeedno tan bay ku anfacaysaa tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisanno xad aynu basharkaba ka maarmi karno oo al-unsu maca allaahi gaadhno inaynu ilaahay u heshanno oo markaad qur-aanka akhrinaysa uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanaysa uu kuu macaanaato oo markaad wardinaysa ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka torrogta iyo beenta iyo waxaan adduun iyo aakhira toona wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay idhahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay idhahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahantihin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tarta miya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynisyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iido leh ma maqasheen maya waxyeelle ma leeyahy dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatare ha isku cabbin waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaase waa khatare ha cabbin baa kuu dul qoran dushiisa ku qorantay ka warra adigoo arkaya haddii lagu idhaho caagada tani war waa sunaya isku cabbinaa tidhaha may iska yara qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalin idan bini aadamkan aad arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsi iyo waxa iska doondoonayso kale uu isticmaalaya مثلا khamri aadanahoo dhan wuxuu rumaysay one of the poisonous waxyaabaha ugu boysinsan dunida inuu ka mid yahay alcoholku waa poison waxba ma taro haddana wadannada aleedin horay u mareen waxay idhaahdeen laba habeen dadku way fasaxayeen inay waashaan shanacshana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaadaa waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhaahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysaa waddanka intiisa kale maxaa yeele labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka warran dad dhan oo isku waafaqay ummadda intay ugu badan laba habeen ha waalato in yarina ha miyar qabto waddanka ha ilaaliso yani ma caqligaa la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiinaa ifi doona caqligiinaa noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysa ilaahay ariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugaysee inaad dunida tan ilaahay uu abwaabteeda kuugu furo qanaaco kugu siiyo waxaad heshaad ku qanacdo noloshana ay kuu macaanaato samaysmaya idan waxaan leenahay alixsaan fi lcibaada ixsaanka kale laga warramo oo dhan isagaa fura u ah waalid ha loo samafalo jaar ha loo samafalo asagoon ha loo samafalo masaakiina waxaasoo dhan waxa fura u ah kani hadduu hagaago xidhiidhkaynu ilaahay la leenay subxaanaه wa tacaala oo nebigu markii la weydiiyey uu ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak salى اllahuma calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وصaxbihi waslm والحمد لله رب العالمين إلهي جدك قمنا هينو وهنوني السلام عليكم